halka yamar ka wadahay aad iyo aad baan yani maaragtay u mahadcelinaynaa ummadweyntan yani maaragtay meeshan Xaaji Saleeman oo ka soo qayb gashay sidii yani maaragtay ninkii ugu horeeyba uu u sheegay beesha haysuuba halkan goboshaan dhigtay waxayna u dhigeen walaalahood reer Xaaji Saleeman curaska iyo xigeenka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ka soo qayb galka يعني ما أعرف لو رحت صغير قلت وها أنت دار ناشان بقول شو وحي كسرتها وأن هيسو ورجع واحد يرى إيمان محمود مع النور أو يعني ما أعرف إيمان حمر لوسو على مساري لوسو علي هذا الثلاث من غير شيء حمر الوصو على مسارك أرنتي حمر الوصو علي ننهر هوري إيمان وها يعني ما أرتي كوريش انتيسا يعني ما أرتي اسفهن كيسا لقد إجي إيمان محمود مع النور لقد إجي إيمان سداس يعني ما أرتي هل كان الوصو عليه سداسا مدان مركا ودن كان شوكتا وماشان أول أن حمل يحب رنشة لكن هاكن قلمدو كوش عليها إلا يرادو قلمدو ومانك على ذلك شوكنو ساسا يعني ماركتي لوسو عليه حالي ومضي يعني ماركتي والكو حالي كنتو كطل معي ماشي وبريهين إرحاجي سليمان وإن إيمانك يعني ماركتي وقدم بيا على مسار intaas markii ayna soo gaadhay aan gogoshaan degnay tolka inaan yani maartay arinta u sheegno inaan yani maartay soo yani arintaas aan u baahino beesha inaan u baahino Xaaji Saleeman iyo wixii kale oo la darisa oo jooga oo la deegaan ah ama maamulka la dhaxeeyo intaas ayaan gogosho u dhignay إيمان محمود وافريا إحنا ما أتورك هيسو وش أقول لك أنا ساسواي تركي اللورد جاي أو إحنا ما أتريا حاجة سليمان يدي كلته أو كلا دحيان با وحنا ربنا سداسان وبرينا سداسان وسوتشيدنا سداس وكشوجا المغن ما هنواني شوجا أنت أصلا أذكر كسر ويلها سيد هذا الكبار لقفوري مرتقات كان شرفت له waxaa dhigay beesha hayso waxayna u dhigeen ujeedkay u dhigeenna si ballaaran ayaan u cadaynaynaa anigu hadda salaamihii iyo hadalka furidiisii iyo dib ugu noqon maayo rag baa ka hadlay ujeedka loo dhigay Saleebaan loogu yeeray ayaan waxaan rabaa inaan si fiican u faahfaahiyo waxaa dhacday isbedel dhaqan oo dhaqan shaqaynayay shaqadii laga fariisiyay dhaqan cusubna la doortay Imaam Umar Macalin Abshir oo dhaqan Saleebaan ahaa ayaa marxalada dhacay awgood shaqadii laga fariisiyay isla markaa shaqadii in cidla lagu sii daayo waa cuntamin weyn waxaa la doortay oo hoggaankii dhaqanka imaamkii Saleebaan loo doortay Imaan Maxamuud Macalin Nuur waxaa shaqada isbedelka markii ugu horeysay amarkeedu ka dhacay marxaladaha lagu bedelana ka dhaceen magaalada Cadaado waxaan malaynayaa intaan wax yar maahane way joogtay wayna ogeed waxyaalaha sababahaas keenay sidaas darteed dhaqanka haysow warqad bay qoreen dhaqankii hore shaqada looga fariisinayo waxaan u gudbinay haysowga xamar degan hadday dhaqan yihiin hadday siyaasiyiin yihiin hadday culimo yihiin way naga aqbaleen wayna nagu raaceen hotel saxafi
ayaa imaam cumar macalin abshir xilkii looga qaaday anna waan halkaan uga qaadnay waan ugu ayiday imaam maxamuud macalin nuurna lagu soo caleema saaray sidaas darteed markii isbeddelkaasi dhacay waxaa la go-aansaday deegaan Saleebaan xuduntiisa iyo dhaqankiisa cadaado ayuu ka koobnaa sidaas darteed ayaa cadaado lagu soo diray aeroboortkan ku soo dhaweynay ilaa intaa shaqooyin iyo hawlaha hoosaan wadnay waxaa qasab nagu noqotay inaan Saleebaan u yeerno hadday culimo yihiin hadday siyaasiyiin yihiin hadday dhaqan yihiin sida dhaqankaas isbedelay loo ogaado dhaqanka la riday iyo kan la qaatay loona shaqeeyo dhaqankii hore waa la riday dhaqankii la doortana hortiinuu fadhiyaa waa imaam maxamuud macalin nuur sidaas ogaada sidaas kula shaqeeya sidaa nagula shaqeeya sidaa nagula aqbala waxaan kala codsanayaa imaamkii shaqada laga qaaday waa nin walaalkeena ha loo duceeyo annagoon ku talinayn inuu beel kale iyo inuu dhaqan kaleeto madax kaleeto inuu dad inta u noqdo uu jawr ku fulo ilaa dambiyaa naga soo gaaraya dhaqankii sidaasaan uga gudubnay dhaqankaas waxaan keenay sheekh maxamuudaan keennay Saleebaan nala qaata la shaqeeya nagula shaqeeya wabillahi tawfiiq sanadooyada diinka dhammaan golaha guurtiga oo fadhiya dhalinyarada gabdhaha waxaan ku soo leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam bacdigeed sidii odayaashuba u yidhaahdeen meeshaan gogashaan waxaa dhigay beesha haysow oo yaraankii Saleebaanku xaq dhow buu leeyahay walaalnimo isku xaq dhowraa waxna waa qaybsadaa wixii xibnaa waa la qaybsadaa yaraanka markii curad wax qaatay oo curad ku xigeen wax qaatay waxaa la siiyey imaamka Saleebaan lagu shar ayagu ma lahayn laakiin qabiilkaa u garta curad iyo yaraan markaas annagu markii hore ninkaas wiilka oo walaalkaya ayaa qabiilka u geynay kadibna qaliilo dhacay awgood ayaan waxaan ku bedelnay imaam maxamuud macalin nuur oo nin ditoora ah oo nin aqoon-yahana ah oo nin dul badan ah oo nin dawladda la soo shaqayn jiro wasiir ku-xigeenka wasiir dawlaha ahaa oo intaas ama dawladdu taqaan ama dadka Soomaaliyeed yaqaan yaan ku bedelnay waxaan marka beesha rees xaaji Saleebaan u sheegaynaa waan rabnaa inay nala qaataan waxaan dawladda galmudug u sheegaynaa waxaan dawladda dhexe oo xasan sheekh uu ka madax yahay u sheegaynaa waxaan UN-ka u sheegaynaa waxaan dawladaha nala dariska u sheegaynaa dhammaantood waxaan Soomaali oo dhan u sheegaynaa imaam maxamuud macalin nuur markii afraad in loo caleemo saaray imaamkii Saleebaan markii hore Saleebaan annagu nagu xaq dhowray oo na siiyey oo yaraankii waxaa la yidhi ximan dooran hala siiyo waana uga mahad celinay sidaas awgeed yaan annaguna nin anfaca oo qabiilka qaadi kara oo xaqa loo dhiibay aan leenahay waa guda karaa waajibay nagu noqotay inaan u keenno hadba maxamuud macalin nuur imaam maxamuud nin la yaqaan oo dawladdu taqaan oo dadweynaha yaqaan oo Puntland taqaan oo Soomaalida dabadda iyo daaqilkaba laga yaqaan weeye nin wax aqoontiisa iyo dabeecadiisa iyo dadnimadiisa la yaqaan weeye annagu waxaan isku kallifnay jagadaas reer xaaji Saleebaan ayaa lahaa naguna xaq dhowray inuu ugu shaqeeyo ayaanan garannay sidaasaan ninkii hore uga wareejinay ninkaana aan ugu wareejinay waxaan codsanaynaa reer xaaji Saleebaan marka koowaad
inay naga aqbalaan oo sidaas aan u dadaalay dagaalkaas nala qaataan oo imaamka lagu ogaado shaqadaas taas saleebaanan marka hore ka codsanaynaa marka labaad dowladda galmudug madaxweynaheeda wasiiradeeda xildhibaanyadeeda shaqaalaheeda inay saas u aqoonsadaan oo ula shaqeeyaan ayaan rabnaa dowladda ka sarraysa sidoo kale inay u aqoonsato oo la shaqayso oo ninkaas qabiilka reer xaaji saleebaanu u duuban yahay ee ku tixgeliyaan sidaasaan dowladdana ka codsanayna annagu waxaan leenahay soomaali weyn waxaan u sheegaynaa in iimaan maxamuud macalin nuur uu yahay imaamkii saleebaan iimaan kalena uusan jirinin sidaasaan caddaynaynaa in sidaas lagu tixgeliyo in sidaas lagu dhowro in sidaas loola shaqeeyo in annagana sidaas maaragtay aan dadka ugu tixgelino sidaasaan codsanaynaa waa sidaasaan rabnaa anugu hadalkayga intaasaan kusoo dhawaynaynaa waxaan u mahad celinaynaa aqoon-yahaniyada nala jooga oo dabad iyo daakhilba ka yimid ogaasyada nagala soo qayb galay sida culummada oo intii masaajidahayd ka timid sida dhallinyarada oo dhammaantood yimaadeen qolo walba ma koobi karee ilaahay baa mahad leh darayaa iimaan maxamuud macalin nuur sidaad sheegteen waa aqbalnay waana la shaqeynaynaa insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu mataqaanaa tawfiiqda hadda imaanka ku doorana ilaahayna waafajiyo asaga hawsha ilaahay u sahlo keliya lama rabo saleebaan keliya waxaa laga rabaa hawiye ku dar ummadda soomaaliyeed sab iyo soomaali bir ninkii anfaca oo la shaqeeya oo la yiraahdo dadkuna yiraahdo dadka oo dhan aabba iyo hooyo allah kaaga dhigo isaga loogu duceeyo isagana ilaahay u fudeeyo annagana waa soo dhawanaynaa ballana waxaan ku qaadaynaa inaan iimaan cumar macalin nuur aan si daacada oo la shaqeeyayn asalaamu calaykum waraxmatullah horaa waa rowlaystay waxaan markaas u tahay keliya inaan xuso imaamka waa maxamuud macalin nuur waxaan u malaynayaa macalin nuur intuu waxbaray iyo maxamuud macalin intay waxbareen ayaaba ugu filnaanaya taageero somalilan haddaad tagto ilaa haddaad tagto kismaayo nin ardaygiisa ayaa laga helayaa ama shiiqu waxbaray macalin nuuraa laga helayaa saa awgeed waxa weeye waxaan taageero iska joogtay baa haystaan ilaahay baa sharfay annaguna waxaan aada ugu faraxsannahay maanta qof dadka dhamu yaqaano asluubtiisa iyo deganaantiisa iyo sharaftiisa inaad noo soo xusheen waan idinka aqbalnay waan la shaqeynaynaa aniga khaasatan amaal ugu leeya macalin nuur iyo khaliif axmed waxay soo yihiin waad garan kartaan aniga maxamuud sidaan isu nahay waana la guuleysanayaa haddii saleebaan seen asoo caloolfiyo u wada shaqeeyana maalinta ma maqan ree xaaji qof tiri laakiin hadda waxa weya ree xaaji hadday sidaa u wada shaqeeyaan waa la guuleysanayaa adinkuna waad mahadsantihiin hadday haysootiin waana did wanaagsanad bilowdeen annaguna gacanaa idinku siinaynaa imaamka maxamuud macalin nuurna waan la shaqaynaynaa waxaan filayaa meeshan qoys saleebaana oo ka maqan ma jiro shaksi ma sheegin laakiin ballafaha saleebaan reebelaa maqan maanta inaan dhihi karin oo intaan marag loo soo qabana ciddii tira waa ka maqana taas waxay ku caddaynaysaa dhammaan lafaha saleebaan ay aqbaleen saa awgeed imaam soo dhawaaw dadkaagii weeye eelkaa weeye waxaan rajaynaynaa inaad noogu shaqayn doonto dariiq xaqa oo aan ku wada faraxno annaguna aan gacan ku sii doono ilaahay waxaan ka rajaynayaa xilkaaga inuu ilaahay kuu garab galo oo meel wanaagsan ku hagaajiyo sidaa wuxuu yidhi tagi on ku jawaabay uu yihi xarfi dhaahoy waa la xoogaye xalaal oday iyo xuduur u helay iimaanka reer walfaayo keligoodaha awal haysto looba ogola saleebaan u ogola marka waxay la tahay haddii asaga iyo baalla yeesho haysooboo dhan uu wado waa laba taabtaab وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بالسنة إلى يوم الدين وبعد
marka koobaad waxaan u mahad celinayaa alle subxaanahu wa tacaala bini aadan naga dhigay na karaameeyey muslimiin naga dhigay ummatu muxamed naga dhigay noo doortay sharafkan iyo karaamadan iyo qiimahan ilaahay nagu manaystay ilaahaas baan horta u mahad celinaya waxaan kaloo mahad celinayaa agaasinkan iyo xafladan beesha noo soo agaasintay sida quruxda badan ee baxnimada iyo sharafka leh aqoonta ku jirto beesha noogu agaasintay aan u maleynay in looga dayan doono iyadana waan mahad celinaya waxaan kaloo mahad celinayaa culamaa diinka nabadoonnada khiyaarta maanta khiyaar waaweyn injineerkii dhammaa oo alla hadduu ku roon yahay waa injineer full engineer diyaaradeed weeye injineerka barashada isma injineer qordheere waan naqaanaa gudoomiyaha degmada xarar dheere culamaa diinka doctoorada lama kala harin maanta dhammaantoodna waan u mahad celinaya intaa ka bacdi ma ku dheeraanayo waxaan rabaa bointis yaryar inaan taagtaabto marka koowaad waxaan arki jirnay nabadoonno hadda waa iska nabadoon laakiin salaada baan tukan aqoon laakiin nabadoon laakiin maantay doctor professor sheekh haddana mucallina haddana ibnu mucallima haddaad maanta noo soo xusheen inuu noo noqdo imaam waa jadwal cusub brofilkana waxay ka gelaysaa ama taarikh nololeedka reer xaaji suleymaan arrin heer caalami ayay ka gelaysaa sababta waxay tahay waa dadkii aan u diran lahayn meelaha manaasibta ugu sii sarreyso madaxweynaha soomaaliya inuu u tartamo wasiirada waaweyn oo soo mara hadda wasiir dowlihii madaxtooyada surxooyan gaashaaniga iyo intii uu noolaa intii yaradu saqiirka ha mahan inuu noloshiisa kusoo qaatay waxbarasho barid iyo barasho shaksi noocaasa maanta inaad noo soo xusheen runtii horta aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya beeshaa taasaan lehay reer xaaji suleymaan o dhan waxaan lehay waa dayasho wanaagsan nabadoonnadii hore ayagoo sharfan oo karaamaysan oo reerka soo dhaqay oo qiimo badanna ku fadhiya haddana nabadoonnadii hore sidaasoo kale waxa lala qaybsado maanta brofesorada soo xula nabadoonnada usoo doorta macallimiinta soo xula nabadoonnadii horena ha shaqeeyaan waa dayasho wanaagsan markaas waxaa soo baxaya maantay wax waliba waa la casriyeeyey in nabadoonnimadii la casriyeeyo oo imaamnimadii la casriyeeyo oo aqoontii la casriyeeyo oo dhaqankii la casriyeeyo loona casriyeeyo tillaab wanaagsan oo sharaf badan nina gaarsiisa ilbaxnimada adduunyadu ay higsanayso marka taasina waa dayasho wanaagsan waxaan kusoo khatimayaa imaamkeena imaam maxamuud macalin nuur waa shaksi taqwana noogu filan ducana noogu filan aqoonna noogu filan ilbaxnimona noogu filan siyaasadna noogu filan marka koowaad waxaan arki jirnaa dadkii hore tufti markii loo dhiibay iyaduna haddii lasoo aqbalo tufti waaba loo dhiibay maanta aanu wada dhiibno mar labaad mar saddexaad markii afraad baan marayna aanu wada dhiibno si asaguna uu noogu duceeyo meeshaasna tawfiiq uga soo baxo labo aan kula shaqayno aqoonta ilaahay uu siiyey waqtiga yar ee la jirayo adduunkan la sii joogi maaye ayana aan ka faa'iidaysano saasna aan kula shaqayno allana aan ka boqono markii la isu yimaado taqwada haddaan la isu dardaarin meesha waa lagu dambaabaye hadda taqwadii alla ka cabsiga ayay ka mid tahay maantay inaan imaamkii reer xaaji suleymaan ood soo diyaarisen annaguna idinka aqbalnay inuu yahay shaksi ahlu taqwa ahlu iimaan waanu aqbalnay waa la shaqaynaynaa waa kusoo dhawaynaynaa waanu ku faraxsannahay waanu ku mahadsan tihiin carruurta mar wax ha baro waaweynka mar wax ha baro mar diinta ha baro mar maadiga ha baro mar ha noo duceeyo laakiin waxaa shardiga waqtiga yaroo maanta lagu jiro oo xoogaa yara qalqalloocan ta xagga laga maro meesha isugu yimid salaanta xasaabad salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan ku xijinayaa iimaanka waan soo dhawaynaynaa doorashada la doortayna waanu aqbalaynaa isagoo qaybo badan maaragtay aanu ku naqaano ka qayb qaadan karo xagga diinta markii loo kaco xagga waxbarashada markii loo kaco xagga militariga markii loo kaco xagga markii loo kaco haddii ilaahay ku leeyahay odaynimada iyo beel aruurinta iyo haddii ilaahay ku leeyahay maaragtay sama jeclaha marka loo eego xagga dadnimada iyo maaragtay kartida intaba waan kusoo dhawaynaynaa waanad mahadsan tihiin
iimaanka jirna ilaahay ka dhigo waanan soo dhaweynayna waana la shaqaynaynaa intii salaam dhacday intii aayad la akhriyey intii uursama la isula yimid intii dadaaliyey wax alla intii hadashay allaha loo aqbalo anigu ma kusii dheeraanayo meelaha sii dheeraadana maba joogto waa ka gudubtay waxay uga gudubtay markii hore waxaan is lahaa beelbeel yaroo magaciisiya oo aan ka u shashirno haddana aan anugu la ekaa waa ka ballaaran tahay wax yaroo ii kuuskuusnaa haddaan dhihi lahaa markii hore aan la ekay lahaa qoyska waa jeclaa waana maaragtay waxna waa isdhihi jirnay wixii yaraa kuuskuusnaa waa ka weynaatay taas iska badaa laakiin waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynaynaa oon aqbalnay hadalku mar haddii inta la keeno la yidhaah waa idiin soo bandhignay intaasay sidaasay waa aqbalnay in la yidhaah aa waajibku ku jiraa wax kaloo lagu dari karaa waa un ragga afmaalka ama cilmiga badanle waxay ku dareen waxaan leeyahay marka anigu imaam magaca la yidhaah meel lagu doorto iyo meeluu taagan yahay iyo meel uu hebel laga yidhaah maantaba igu hor aniga sidaydan maanta igu hor xubnihii kale oo dhaqanka waxaan moodaa inaan soo wada arkay laakiin inaan maqlo mahane maanta ka hor joogjoog kama ahayn waayo dhaweyd waa ogaa dadu laleeya waa imaam iyo waxaan u qaatay inuu yahay adigu nabadoonnadoo kale oo qoys camal uu ugu jiro kaalinta aan u arkay marka waxaan is iri waa un maaragtay waa baraka oo maaragtay ugu barakaysta nabadoonnada lagu lamaash hadda hadduu ka wen yahay imaamulislaam yahay mid reer beesha yahay waxaan ilaahay ugu mahadinayaa waxna ka soo dhaweynayaa siiqadaas wanaagsan iyo qaabkaa la isugu keenay iyo nidaamka sidaasa oo aniga wax iga soo gaari doonaan iyo awlaaddayda sida hadalku u dhacay marka taas mahaddaas ilaah baa iska leh waaan soo dhaweyn waxaan kaloo leeyahay waan ku daraya isaga alxamdulilah ninka waxyaalo badanaa jira imaam waxyaalo badanaa jira waxyaalo badan oo adigu aan rajaynayo inaad sababta bixi karto baa jira waxayna ka soo galaan aqoonta diineed iyo midda maadiba markii la isku daro bani aadamku wuxuu u baahan yahay cilmi jahliga ka saara oo haga oo ay ku badbaadaan oo kii aakhiro xataa ay uga badbaadaan dhibkeeda yaa loo baahanya waxaan leeyahay haddii la yidhaahdo dadku ku dhaqmo dhaqan iyo diin labadaba diintu waa cuuriyaan dhulkay taal male sheekh male nin madaxweyne male qof u dhintay iyo juhdi male waxaan u malaynayaa kii usoo baxay inaad tahay arrimaha diinta kii usoo baxay inaad tahay waa la xukumay duca liyahay haddii kale wax fuliya waa la waayay waa soo gariiray waa la iska daba wareegay waa la camba buusay aayadda qur-aan waa booyeysaa waxa ku jirtaa xabsiga ku jirtaa oo ilaahay ku baray oo annaga dhan aan haddii markii lagu sheego magacaaga la sheegay aabbaha la leeyahay alla ilaah waa tahay la leeyahay waxaan anigu ku dardaarmayaa oo aan ku leeyahay gacanta midig ku qabo maadaama mas-uuliyaddaas ilaahay kuu kasay laguna dhiibay hala la isugu tago oo gacanta la isku siiyo qur-aanku dhulku yaaliyo xadiisku dhulka yaaliin ilaahayna ma dhigan isaga ilaashanaya laakiin waa lagu dhaqmi waayey waana iska daba wareegnay habliguna isagoo ku jiraa cilmigaaga soo bandhig oo diinta u horrayso
kan kale oo naadigaana haddii waxa weeye isaguna xigmadiisu leeyahay laakiin kan hormari waxaan marka kugula ballamayaa iimaanka waxaan macalinka kula ballamayaa sheekha intaasaan aniga wadnaha iga qabatay dad aan ilaahinkiisa diintiisa ilaashan dad ma ahan haddii aan dhihi lahaa marka uu ka kalena isaga soo dhegayna maba eedeeyeen maanta mana hor dhigneen waa u hawooday rajaan qabaa waa ii soo carartay waa nuuraysaa diinta islaamka gacanta midig ku qabo muslimkana ku dhaq saleebaanna mugdiga ka bixi ilaahayna kuu fuudeeyo uma diyaarin anigu barnaamijka uma diyaarin gabay waxaan rabay inaan mid wanaagsan u diyaariyo ciddii kaloo rabta inay bulshada hogaamiso ay rijayso ha lagu gabiyo istiraadaan rabay inaan u diyaariyo imaamka ma aanan diyaarin marka ummadeennu imaamkay rabtaa waa kan aamina dawga hadda aan sheegayaa intaa weeye imaam maxamuud waa waalidaan malaynayaa macallin buu ahaa macallin dhalay waa waalid waxaan aad u jeclaystay oo dhiirigelin mudan aqalkii Dr. Cabdiraxmaan ama Sheekh Cabdiraxmaan Cadaawe qof leader oo aan aqoon lahayn waa dhibaato inkastoo dad aan aqoon badan lahayn wax fiican oo qaban jireen taariikh fiican sameeyay dadkii iga horreysay uu sheegay waa aqbalay aan ku qanacnay macallin dhalada imaam aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بعد السلام ورتو مركو ورا waxaa isku kii sheegaya ninkaas waxay la tareexad islaam bay awal soo galgalanay laakiin inta aan u horeeyo beelaha kala ay soo gashay marka u horeysa horta anigu midulada Raabaan Abgaal Cismaan saddex buu u dhashay yaraankii baan oo waxay islaam anagu saddexda Abgaal u dhashay mid iimaanku leey iimaanada ka baxa qaybna waxa ka baxda ugaasada qaybna waxa iska leeyihiin boqor ama suldaan magac liira waxa wuxuu leeyahay boqor kulli boqorka ha ka sii baxeena beesha siile oo ka soo dhex baxa beesha la yiraahdo Cabdiraxmaan Juufada Cabdiraxmaan Saleebaan liira مع النور سياد باتغن محمد سيادة تقيني مع النور باكسو تشيله بود يا رجل ورنجلا كسو تشيله كان داود باكسو تشيله waxa ka soo jeeda Dr. Ismaaciil Cusub ninkii yariqaanka adduunka Soomaaliya oo dhan u madaxda ahaa siiba Juufaan afar baa kala tirsanaa ilaa Macal Nuur iyo hadda hoos loo sii dhigo anigu marka waxaan ku hadlayaa marka hore afarta ilmaha Raabin curadkoodii baan nahay maanta ka hortay dadku waxaan sidaas u leeyahay dadka ayaan waxaan ka dareemay inuu suuqa hadda magaalada ku dhashay dhex joogahay warabkana ma dhashay ma yaba curadkii biya ma yaba yaraanki maanta hortay ka baxlaan raba hadalkaas ma kala yaqaani horta laga bilaabo curadkii Raabaan ama dowladda Raabaan maqaamkan waxaan maanta u taaganahay curadkii mudulada afarta ilmaha Raab ayaana looga hadlahayaa laguna gunaanadayaa ma ahan raaxatu islaam hoos bay ka soo xusan way noo keen imaamka awalan goboladan aan joogno ama hadalku ma magaca galmudug ha ku shirkoobeen ama mugay galgaduud baa la oran jiray ama beelaha dagaha aata dhamaantood wakiilka u jooga oo aan laga daba hadlin baana hadii mudulada Raab ogaaskii anoo ku hadlayo quradkiisa imaamkii anoo ku hadlayo qowlkiisa anigoo ku hadlayo ogaaskii qowlkiisa anoo boqorkii hadalkiisa ku hadlayo saddexdaas waxaan ku dooranay oo shurkoobo mudulada Raab ka sii dhex baxday Abgaal ka sii dhex baxday imaamuna imaam Maxamuud soo doorateen baa in la dooranay hal inay ogeyn baan loo dheer marka iimaankeena waxaa la yiraahdaa doorateen loo soo gudbiseen imaam Maxamuud Macal Nuur cilmi siyaad bal cilmi awal ha
macallin nuur asagoo socda ayuu u yimid xarun macallimada abgaal dhex fadhiista magac kalaana la oran jiraa ilaa waa la iftiinin doonaa aakhirul kalaam macallintii diinka soo bartay macallinka u dambeeya macallin nuur u magacaabay dugsigana kula dardaarmay garbahan karbaaco yiri diinkaadan ku anagu maalintaasaan u soo dhiiblay macallinkeennii macallin nuur dabadeedna hoggaan buu noogu ahaa haddaan nahay beesha mudullood ama abgaal cismaan shacal cismaan ayaa la oran jiray wilaayadaasi waxay kala gaadheen mashriqaha waa maqaaribaha mid la tarakoobi kara maayada waa ogtiin midaan idinkaa doordoorta laakiin anigu wilaayadii aan shiiqa hore macallinka ugu soo dhiiban mar macallin cumarku soo martay hadda imaankeennii imaam maxamuud haddii aad noogu dhiibtaan meelaan joogna waa farxanaa laguna dushaan ka saarnay waa midda diin awal meela u dhignaan garan wey way heehaabays maqaamu daraja waxaa iska leh ilaahay halkuu doortay sida nebiyaalkeeni markuu doortayna hadda diin buu ku doortay diin buu u dhiibay ee maalkan talo dhigu soo qayb dadka lama oran waxaa dhaxlay culamaa diinka ala culamaa warahatul ambiyaa maqaamu iyo darajo waxaa iskale ilaahay ruuxuu diinka u dhiibay haddana socodsiiyey oo faafiyey imaamuna imaamu maxamuud wuxuu noogu yahay diinka ayuu noogu yahay midda beeshana waa nin mateli karo qaado ruuxaan diinahay waxba ma mateli karo hal ahaade hadduusan dhowrina waxba ma wadi karo afartaas labadaa martabo ayaa macallinkeen yaa imaamku ku sufooy ilaahayna way waafajiyay annagana way kula aqbalay taa qodobka halkaasa waa baxaya qodob kale khayr allaha siiye imaam war imaam meel lagu doortay ma joogo mir waa runtiis hadda zamanka anigu aan ku filahay 40 sano yaan waxgarashadeedu tahay 30 sanana xilka aan wado oo aan sheegtay oo aan ilaahay hoggaan baan waa ahdaan gadaal meel yar ka iftiin xil wuxuu ahaa aan isku saaray ee qabiiltay yimid macallin Umar oo wadlay ma oran أنا واحد سكسار عرض إنا هو كله حدو واحد سكسار إنا هدرب بيش بدو هراب أو كميدا هاي حيوان كاحد لا إما يقول هذا بقول كله فينا ولا يلا يا بقول غوص سلا يا جالس سلا ولا راعي سلا لا يستغني دقوة راعي سلا ما هذا لك السياح ميلا أنشوف دقوة ويهرت أجنتي ميلا أنشوف حاجة يسود نافذ دقوة مسوق بي هدو شوجنا جيسنا كيستاجي وإيش شيء كنا هذا وفجارة وهذا كراني كيرا تاسع كمدان وعلى بغاية اللي استاجوا لا وحيش كلامينا وحنا هذا قودا رياحة سليمان وحن كمدها علماء رياحة سليمان وحن كمدها قودا هدانا جود كهرا المهرة هدانا عرض نبغى نروح وحكو إلى اليوكو الدية وردغودي باتي حاجة إلى إلي من بارت إلى حق يا الحركة ولا كأمل كده سيدا أو جيل بين العورة كي أهي كوير دينها يسكون دورها يا حضرنا عن دينت إلى شنجي ساسو هاي تلاميذ ريم مع النور بانا هاي وقاعدة تلاميذ ريم مع المدرسة سيئة تاسر ساسا الكبري ينجروا دردانا لوين كبري همين نويد ما وحنا لك في سنة يا ماتشرتك أيها واحد انتي للعلامة لها أو أها السلطة إحنا إسلام رجي سيبا واحد إشارة كل على ويل شان يترجم إيه تاس كلامنا وحبالة سوق تشعسينها هي واحد إسلام جوا فرق بدأ يجوا فضل واتربط سأل سوي واحد لو سوق تشعينا لو سوق تشعينا واحد اللي يري أسلم دي كلام تي من إيه صلاة دين تي كلام واحد لك أنا حاب أوله يا برباريا لي كم قاعدين أنا هذا أقول حال سلادين تباتيني اسمدي كله أو بلهان وسولوي سيد عيرو كله سعدو كله وديجا كده وابله أنا بربارين إلا وجارو
laba nin oo jufadii oo kala oo sida imaamka garbiisa culimadiisa kala ana waa loo soo xalay xogtaan in kala xiriirayo wiilka barbaarintiisa nabadgelyaan ka rabnaa arinta kale wuxuu sheegisteeda iyo aruurinteeda iyo naadaaminteeda waxa iska la wiil anaga iska lahayn ilaa uu barbaarnaga qolo ah tacliimin ma waxa igala cajiib badnay horta sideeda marka u horeysa xibintu say u heehaabayso ilaahay ma hadis way marka daba ay soo fariisata dhaxalkii uu lahaa soo fariisata dhaxalka hadinku dhalasha u taqaanay laakiin waa diin dhalashana hadda waa ku darsan waxa soo haray taas na waxaan kugu daraaya hadaa imaamku noo doorteen waxa kamid ah qoladaas lacagan la yaabay oo aqliga ka baxsanay ya la diyaari qaybtan waxa iska lahaa leeyay اسم كاسكال قايبتان كلا بانكا لو سو waxa iska lahayd ism adiga kuma nasii waxaad ku furdaaminaysaa baale beesha ku dhaqaysaa oo ku kala furdaaminaysaa gogol dhiga soo aruurinta heshiisiinta halkii la qadin waayo maartay hadal ku ma hayo yacdiisa hada waxa la inka raba sida uu sheegay qeyr Allah siiya imaamku waa durtiin meel barigtiin imaamka waxa la ranta duubnaan ka tagna ma imaamka wuxuu tolka ku dhaqi lahaa ayadii talaka tashan qabaayilka kale oo ku dhaqi lahaa midda kale raaxatu Suleymaan maala waa imaam hiraab ogaad haasan ku soo qatimay sababta hada qaacida yar ka bixiyo anu inta tagay baan asimadaas u tagay ismkii beesha meeyay markaas dalqo leeyay ismkii beesha hada ku socdaan حاجة نقول سعيد ديادي شن يطلع سلام وترابع يقول سو هاجا روته يقول سو دقي أقبل يقدروا عليه صوص سنة إلى هبل وأقبل وقت وير أنت مدة ما أنت سيء ما مرتقات كاس نقاط هاي كنت جراوتي سلطان كمية إمام كمية روجاسكي طلع روج إنه خلك لما غامر روجاسكي هذا كوس سعدا حاجة أنا كوس سعدا هذا واحد وقال إنسان يب كاسو أنت اللي جاكو رئيسا إمام كيسوب بلاين هاي إمام كله يدك ويدي الله waxaan hadda ilaaba garan maayo intii horena reexay Suleymaan baa hadii Allah idmo goobaystay intii dambana inkaas hadii Allah idmo xagga u kala caadiye marka boqornimada oo macallinku sheegay waxay ahayd waa hore aad u balqashayna maanta qasho ma ahayn geel baa ku jooga dadka marna aad u sheegtay intaas waa inta kale waxaan soo dhaweynay oo waxa tiriheen maadaama reexaaju Suleymaan keliyuna meesha fadhiyeen dad fara badan joogo deegaanka uu ku nool yahay insha Allah jinniyiisa makhluuq fara badan baa dalka ku nool makhluuqa faraha badan oo jireec iyo jiriir iyo raxan weeye digli mid nooc walba leh ayaa waxa tiriheen imaam محمود معلم نور بان وحن كبدلي إمام محمود عمر معلم أبشر سادو بدشين بان نقول إذن لقدوني مسالح إذن إذن كبدلي وحونا أيهاي ريحة السليمان وهاد مودينا كيلي جنين ليدين دوبي وحود دوبي هاي خلقك كنا الحبار يحب تاسو دوبيه إلهينا مركيه أنا ولا مرة مكنا معاذ الله وليبا أنت وليبا أسيه هاي يعني وبقرك خاص كأسيه يعني ما بدنا واجر العيبين ما صادرات قد مركه وحويان واسود ويننا إلهينا حلك حقو حلترو حلك اللو بيبي بس هذا الله شيء أقوم بو أستاهلا دين بو أستاهلا نصبت بكو استاهلا نوع والبكو استاهلا اسر نظيف وكسو جيدو او الا الملح لو waxa jira dhulka meel ciid xuna jiro inta la ka taad qodood meel xun oo carab oo u galiso isagu dabaac iyo baac meel wanaagsan ka soo jeeda marka meeshaas ku astaahila diin ahaan buu ku astaahila aqoon ahaan buu ku astaahila saadaraade reexaaju Suleymaan kan saa ku yarto jiraya imaam bahashu ma aha inta yararka adoo maalintiiba laba goor la soo wareegay reer Suleymaan ka ku soo noqon marka waxaan leeyahay intaas hal lagu yaano waan ku soo dhaweynay ilaahayna ha kugu garab galo qofka ilaahay ma ciisa ahayn waaluma
إلهي معاك هالنقطة ومسؤوليات قالية خلقك يا خالق والله ما يكون دوريان مسؤوليات دا إلهي معاك هالنقطة كوكا صوبحو إلهي كو مارك أجري يا ثوابي خير كجهر الله وقيمها له آد وقيمها يشرف بدل له أيام ما هنقينا ما هنق بعدي عن سود ويننا أنا وأكوها الله يبقى علماء الدين كبشة أما ديجان كان مدأ وحان سود ويننا مقع عبد الله مقع عاوي إمام دكتور محمود معلم نور علمي عوالة إمام نماذج الله مقع عاوي أيام سود ويننا أنت هالدبلت لوا قيبوض ماشان فديان ربائنا دردار نتشيديو لوا قيبو waxay tahay dadkii imaamkan u dhiibay xilka waxaan leenahay xilka oo la isu dhiibo oo aan la iskula shaqeyn dhibaato leeyahay cidda aad imaamka ka dhigteen qiimo iyo sharaf ayay hore u lahayd qiimahaas iyo sharafkaas ay lahayd inuu ziyaado mooyee inuu nusqaamo sababha ugu noqonina waxaana keeni karaa waxa shaqada oo idinka mudan yahay iyo isgarabtaaga uu idinka mudan yahay inuusan idinka helin baa dhibaatadaas keeni karta dhibaatadaas inaad ka digtoonaataan baa dardaarankaygu yahay dardaaranka kale imaamkaan la dardaarmaya waxaana leeyahay imaam acdaadan hore u lahaan jirin baad yeelatay imaam dadan ku qabsan jirin baa maanta ku qabsan doona dadan ku xaasidi jirin baa maanta ku xaasidi doona dadan ku necbaan jirin baa maanta kadib ku necbaan doona waxaan kugula dardaarmayaa dulqaad iyo u adkaysi iyo ugagsi ayaan kugula dardaarmayaa waana caadada Soomaaliyeed cid walba xil la siiyo oo xil loo dhiibo in ibliisku ugu horeeyo cadawi ay soo weeraraan dabeecad hore loo adduunka loogu yaqaanay weeye marka anigu kuwa aan ogahay oo hadda ka warqaba maahane dabeecadda Soomaalidu sida ay ahaan jirtay weeye sidaas anigu sidaasaan leeyahay ku dardaarmaya inta dabadeed culamaa u diinka waxaan leeyahay wixii la ballan qaado waa la oofiyaa nisbada culimanimada oo horena u lahaa haatan aad ku taageeraysaan oo meesha kula fadhisaan waxaan leeyahay hal idinka helo ka soo dhalaala assalaamu calaykum waraxmatullahi العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وحن سلامنا خيارة دمان علماء الدين قضياش السياسيين إيمانك إيمان دكتور محمود حاكم علور الليلة إيمان دكتور حاكم إيمان دكتور محمود حاكم على النور أجل سولوين مع النور مع النور كلية ملاحين سأل ليش الحاكم على النور الليلة حاكم على النور أها أصلا وحلا إنهاي إيمان دكتور محمود حاكم على النور أن سولوين إنه أن حد أفق علماء نكمل هاي لكن أفق علماء معلك شيخ يقول ريكو هاللي وحنكو هاللي يا سيدي أوسي أتكينا أفكي أسي أتكينا يا علماء ودينك سودو وحا أقول فلان تاغيرو سيدي أوشاق عبد السلام قليف أحمد يجري أنتي مع النور وحبري أنتي ودكتورك وحبري أبا تاغيرو أقول فلان أيوة دمان waxay ka kooban yihiin ummadda Soomaaliyeed ka kooban yihiin si loo baahan yahay waxa waaye hadda sidii oo rag qaar sheegeen imaam ma ahan kaliya reer Xaji Salaaman waa soo bandhigeen waa imaanka ummadda Soomaaliyeed marka barakallahu fiikum ayrul kalaam ma qalla wadalla weeye إيمان صدقوا قرب كان الله قالوا آخرين من أدنى الله سبحانه جدك مستقيم كوتوسنا وأدنك الله تكوتوس جدك آخرة توسنا الله كوتوس شرط لما أنتنا الله كحف خير لما أنت سنا الله وكر تفتي سأية تردي سأية تشيشي سلما أنت نطق مثل الجود وروح على مالو ميل وقلوا بكل متى الله كيا ما يبي سيد القرآن كلا جاري مع دعاديسا يا تلاتيسا يا الله كلا جالس ميل والبلا كلا جالس مثل الوقت
qaboobo oo maanta ugu intifaaco ku rogo kara Allah ka yeelo shar dhamaanteena Allah ka xifdiyo shar dhamaanteena Allah ka xifdiyo inta timid oo dhan gobasho dhagatay oo toolka dhamaanteena Allah xifdiyo meel joogan ba Allah dhowro kalada tigaadoo kara Allah ka yeelo gobasho way loo wada dhigaana ka dhamaanteena Ilaahay na xifdiyo adduunka aakhirada Allah nusuul دمنا في المغفرة الله المسلم هذا بيأفلح إلى المسلم هنوي هداية خاتم الإيمان إلى المسلم دين كزعم قرب إلى المسلم دين نافع إلى كابر أولاد بر إلى نوغير مال كان هيسنا مال طيب إلى كير نبض أن هيسنا نبض وارت إلى نوغير نبض أن هيسنا نبض وارت إلى نوغير يذكرت أو كرت إلى نوغير إلى أذان السيا نسيان من خلق الجنين هيانا إلى حق توسي هذا إلى فاتحة دمان علماء الدين خيارك وحجرتك وضياشة انت لليرادة دمان انت هالك تقولشن وقيدها كالدوانة بالشدة وحنك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحنا دي هذه مكرمات علينا يا ماتنك آتنادين يريتان كيف بدون ياري وحقارت كهيسو وهل كان بدون ياري هذا جيبتين وحنا دي هذه ما هذا يقول علينا يا انت كسو شقيسي odayaashii beesha hayso waxgaradkoodii dhalinyaradoodii intii ka soo shaqaysay xafladan quruxda badan ka soo shaqaysana mahad ballaaran aan u celinayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee aad igu soo dhaweyseen oo aad taladiina iyo tusaalooyinkoodii aad igu deeqdeen iyo ducadii nuqabka ducadii aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa intii hadashay oo halkan ka hadashay oo talada wanaagsan iyo tusaalaha ii soo jeedisay waxaan leeyahay ilaahay ha igu hanuuniyo ilaahay ha igu ilhaamiyo ilaahay ha iga qaado waxa weeye wadada toosan allahna abaarsiiyo waxa weeye waxaan haddii alla yiraahdo aan ku dadaali doonaa inaan taladii halkan ay iga soo jeediseen dardaarankiinii wanaagsanaa inaan qaato oo ku shaqeeyo waxaan si dhow ugu shaqayn doonaa uga shaqayn doonaa duubabka beesha duubabka Soomaali duubabka beesha Saleemaan duubabka beesha Soomaaliyeed duubabka Islaamka dhamaan waxaan jeclahay waxa la yiri ninka duubka ama isinka wuxuu ka soo baxaa beel buu ka soo baxaa laakiin markuu beesha ka soo baxo beel wuxuu gaarayaa mid Soomaaliyeed haddana mid Islaam uu galayaa marka ama in alla intii howluhu nagala dhaxeeyaan oo dhan waxaan jeclahay inaan si dhow ula shaqeeyo oo aan ku dadaalo wadada toosan Allahna abaarsiiyo laakiin waxaan jeclahay inaad talooyinkiin tusaalihiin dardaarankiin inaan ku shaqeeyo waxaan jeclahay haddii alla yiraahdo haddii dadku si wada jira ay wax u wada qabtaan oo ay wada shaqeeyaan oo ay tala wadaag noqdaan mar kastaba waxaa laga rajaynayaa in ilaahayna uu tawfiiqda haleeshiinayo oo ilaahay ku hanuuninayo wadada toosan waxaan leeyahay wadada toosan ee khayrka ilaahay aan ugu hanuuniyo waxaan ku dadaalaynaa waxa la wixii khayraada inaan isgarab taagno oo aanu taageerno wixii shar wadana ilaahay inuu naga kaafiyo annaguna aan iska barbarino insha Allah waxaan rabnaa haddii alla yiraahdo inaan wadada khayrka wadada wanaaga wadada sulxa wadada wada tashiga inaan ku shaqeyno inaan tala wadaag la noqono dadka waxgaradka ee beelaha iyo beelaha Soomaaliyeed ee waxgaradka odayaasha asxaabul xikamka inaan la shaqeyno oo aan kula shaqeyno oo aan ka hortagno wixii xumaan wada
oo aanu la shaqayno kula dadaalno wixii khayraad iyo wanaag wada intaasaa noo ballana waxa weeye qof kalena wax ma qaban karo waxaan idinka rajaynayaa sidii odayaashii culimaadudiinkii ay ku dardaareen dardaaranku waa noo wada yidhaahdeen inaan anaguna dhinacayga intii laygula dardaarmay aan ka xejiyo idinkuna intii laydinkula dardaarmay inaad ka xejisaan insha allah waxaan leenahay ilaahay dembigeena iyo dembi waalidkeena allah dhaafo dembigeena dembi waalidkeena allah dhaafo majmac khayraad allah ka dhig kulankeena kulan khayraad allah ka dhig dembi dhaaf iyo magfiro allah na siiyo